بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo dhaweynayaa koorsadani computer application barashada MS Word 2010 videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee loo isticmaalaa character formatting format painter sida loo isticmaalaa waa arki doonaa format painter wuxuu awood ku siinayaa in aad soo koobiyeysid qoraal kale ama text kale formatkiisa oo dhan tusaale ahaan haddii color uu leeyahay haddii styles ka hadda soo marin uu leeyahay wax walba ayaa loo yaqaana format painter. So waxaan sameysanaynaa qoraal equal rand tusaale ahaan qoraalkan iyo hadda waxaan kusoo sameynaynaa farta kasoo bedeleynaa colorka, waxaan kasoo bedeleynaa size-ka, waxaan kasoo bedeleynaa colorka iyo nooca ay noqonaysa. farta dooraneynaa waxaan ka dhiganaynaa Times New Roman, waxaan ka dhiganaynaa 14 colorkeeda waxaan ka dhiganaynaa guduud iyo hoostana ka italic ka dhiganaynaa. So tan hadda click siino dhaxda ku dhufan fartan micneed waxa waa Times New Roman waa 14 xajmigeeda waana italic halkaas laga arkaa waana guduud calaamadii. tan haddii aad click siino it means gallery body waa 11 waana madow farta. So tan inta mar labaad inta ayadana calaameeyo aan ilaa tan iga soo dhig Times New Roman haddana 14 soo dhig waxba ka khaldami karo. So waxaan rabaa marka formatka ay wadato document paragraphka formatka uu wato idil in kan automatic la siiyo anana wax kala soo marino farti size-ki tagin farti type-ka anana tagin yaa rabaa inaan isticmaalo kaas waxa loo yaqaanaa format painter. So waxay imaanaysaa home tab kadib waxay isticmaalaysaa tabkan loo yaqaano format painter. So marka hore waxaad soo dooranaysaa qoraalkan select kadib waxaad leedahay format painter kaliya kusoo dhaysaa format painter. dan waxaa imaanaynaa qoraalka rabtid inaad formatkiisa saaxdid kiligtaa qabanaysaa waa kusoo jiidaysaa ilaa inta markaa imaatid meesha aad rabtid qoraalka inuu noqdo waa sii daynaysaa. haddii aad sii daeyo qoraalkan wuxuu la mid noqon doonaa paragraphka hore. Okay, qoraalkan intaa highlight gariyey maanan dhihin farta kasoo bedela, maanan dhihin size-ka kasoo bedela, maanan dhihin color-ka kasoo bedela, keliya waxaa sameeyey format painter. si lamid ah isla asiga ku celin karaa format painter fartan kale asna waxaa sameynaa format painter soo highlight gareyna oo ku sii deena. So format painter waxaa la isticmaalaa farta haddii aad rabin inaad waqti kale oo dheeri ah ka soo martay waxaa la isticmaalaa format painter. si lamid ah kan hadda keliya haddii color kasoo bedelo madow ka dhiga sidiisa kale fartiisa Times New Roman waaye Times New Roman ka bedelo aan isticmaalo farta noocan kale aan rabo qaybtaan oo dhan inay tan in noqoto. So waqti ay u soconayo oo hal u sameynayo soo kana calaameena عليها format painter وكسو جيرا ayaga soo waxay la mid noqonayaan fartii dhan hadda hal nooc wada noqonaysa. saas oo loo adeegsadaa format painter. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.